waxaasoo kale horta xil uma arkeen naanays baan u qana naanays de xirsana iskuma naan lahayn naanays inuu iga soo daba tuuro marka waxaan leeyahay gudoomiyaha naanaystii adii soo magacawday waan ku soo celiyo horta marka koobaad anuu inanka reer Boorama ama inanta reer Boorama ay reer Awdala haddaanan haynin barnaamij cad oo ay ku dhimato askariga isku laayaan ninka mudaharaada oo soo baxo oranaya horta mana qabayn la mudaharaada la soo baxo waxa kaloodii weydiisay xilka lagu magacaabay ku-xigeenka xogayaha xiriirka golayaasha iyo dastuurkeedii weydiisay horta aanu xilka maan qaadan gudoomiyahana waxaan u sheegayaa xilka inuu celisiga yahay isaga u celiyo waayo anu waxaasoo kale horta xil uma arkeen naanays baan u qana naanays de xirsana iskuma naan lahayn naanays inuu iga soo daba tuuro naanays iga soo daba tuuro marka waxaan leeyahay gudoomiyaha naanaystii adii soo magacawday waan ku soo celiyo horta marka koobaad inaad haysaan jecelahay waxaan si anigu aaminsanahay oo aan lahaa warnimayahow xisbigii wadani markay structure-kiisii shirweyni la dhisayo war gudoomiye ku-xigeenka koobaad han qaadan maanta gudoomiye ku-xigeen baa jooga ka koobaadna maaha ka labaadna maaha ka saddexaadna maaha ka afraadna maaha waa 5 gudoomiye siman maxaan kaga duwanahay xisbiga kulmiye waa 4 gudoomiye iyaguna nin baaba ka afraad ku qoran kan mid afraad iyo mid shanaad midna looma kala sheegin waa gudoomiye xirsibe wala gudoomiye ku-xigeen loo wada yahay kolba ku doona u gudoomiyaadii different way inuu jiro haddaanay jirin markaa wax kala duwanaanshihi sababanu si ahaada macaarad oo su'aashaadii weydiinaysan kaaga jawaabaya wari waa degdeg oo aananu markaan u ahaado oo aan kaga duwanaado xisbiyada kale ma jirto hal gudoomiye ku-xigeen kulmiye ku leeyahay gobolka Awdal hal gudoomiye ku-xigeen wadani buu ku leeyahay hal gudoomiye ku-xigeen cid buu ku leeyahay saddexdii xisbi qaran waa kuwa waay markaa macaaradaadii weydiinaysaa aanu sii joogayeen markaa taagnaanayahay in bulshada u sheego aan iraado mudaharaado oo soo baxa balba dhadhakeegiyo macnaheega wariyo wada dib ku weydiiyay waxaan ku wadi tasti ma hayo dhadhan mar haddaanan haynin waxaan xisbigiyada kale kaga doorto xisbigaygii oo aanan iib geynayn waad maqlaysay shalay tooreen xisbigu la soo baxo mudaharaad annagu mudaharaadka xisbiga waan ku kala rasduuna anuu inanka reer Boorama ama inanta reer Boorama ay reer Awdala haddaanan haynin barnaamij cad oo ay ku dhimato askariga isku laayaan ninka mudaharaada oo soo baxo oranaya horta mana qabayn la mudaharaada la soo baxo waayo anigu waa baanahay inanta jaamacadda ay dhigata ka soo horjeeda ilmaha iyagu yarna fasalka afraad buu dhigtaa kuwa ay booliiska is haleela Cabdiraxmaan baa kursi waaye xirsi baa gudoomiye ka dhacaye Boorama horta kama dhex odhanayo dareenka shacabka reer Awdal ma dhex yaala loolanka xisbiyada miiska siyaasadda lagu kariyo marka la joogo ee ay wada hadlayaan miyaad ku aragtay Maxamed Cali Wabdi Abubakar miyaad ku aragtay wadani baan ku sheegay miyaad Cabdiraxmaan Saylici ku aragtay maad ku aragtay de ragga xilalka haye marka miiska lagu karinayo laga wada hadlayo marka soo banaado soo baxo kaalay oo halkan yimaado soo dareero oo askarta iyo hay sariiriyadaan ninka garaadka la imanayay aniga dawiga garaad fiican yahay sameeyay